maqashay dukaan uu soo joogin qof shaqaale ah oo macaamiish soo galay u khidmaynaya ama qof shaqaale ah oo fadhiya cashier-ka qofka alaabta soo gatay ka xisaabinaya lacagaha ama ma maqashay weligaa gaari isku wadaya oo bilaa darawal ah oo albaabka inta kugu imaado meesha aragti ku geynaya waxaan ka hadlay dhan waxay kula muuqan karaan waxyaalo khayaali ah laakiin xaqiiqatan waa tusaalooyin dhab ah oo maanta maalinka aan joogno jira caalamkana qaybo kamid ka jira shirkadda caanka ee Amazon ayaa waqti aan sidaas u sii dheerayn waxay furtay dukaamo ay ugu magac dartay Amazon Go dukaamadaas oo kuwa aysan joogin wax shaqaale ah oo macaamiisha u khidmeeya ama xisaabiye lacagaha qabta ayaa kuwa macaamiisha ku adeegan karaan ayagoo adeegsanaya barcode application-ka Amazon Go oo telefoonka ugu soo diro deedna alaabta ay rabaan iyagoo aan marin qof macmiil ah oo cashier-ka fadhiya ama qof kale oo alaabta ka kontrola ay iska bixi karaan deedna ay noqonayaan kuwa alaabta soo qaatay lacagtoodina bixiyay dabcan wax teknolojiyad ka dambaysa weeyaan kuna jirta computer-ka kuna base gareysan bangigooda iyo application-ka isticmaalayaan waa mid aan kaga hadli doono si detail ah muuqaal kale sidaas si la mid ah shirkad baa jirta loo yaqaan Cafe X taasoo ku leh sandaqada yar laamiga agtiisa taasoo ah gacan robot ah oo dadka u diyaarinaysa kafeegi kuwa qaxwaha jecel hadii goorna ayagoo laamiga soo maraya ama meel fog soo maraya ay si dalban karaan qaxwaha ay rabaan oo oranayaan noocaas sanjibishu ku badan tahay biyuhu aad u karkarsan yihiin caynkaas ay si diyaari xitaa marka qaar robotku uusan ahayn machine kaliya ee qofka insaanka booskiisa kale ku jira oo qofka macsalaama ama bye bye ama nabaday oo dhigi karo haddaba labadan shirkadoon ka hadalnay mid robotka qaxwaha sameynaysa iyo Amazon Go dukaankeeda bilaa shaqaalaha ah waxay leeyihiin faa'iido khasaare faa'iido waxay noqon kartaa adeeg hufan iyo qancin dheeraad oo macaamiishu helaan ayagoo aan dad la doodayn ee waxay rabaan toos u soo qaadanayaan dabcanna khasaaro waxay noqon kartaa qofka xisaabiyaha oo alaabta tirinayay qofka kontrolaya lacagaha ka irida taagnaa dhammaantood dadkaas waxay yihiin dad shaqo la'aan ah laga yaabo in homeless yihiin laga yaabo in meel kale joogaan laga yaabo shaqo aysan ku qanacsanin aadeen ama ay shaqo la'aan yihiin oo meel kale mashiin shaqadooda qabanayaan